وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي قبل كرسو هدان إنك صون جيسي ريو أديك هاي هدان قرب شيء يكون أكسين آد بنقوم هاد نقنا دمان والدين تا الله با وقت قيمة بدن سكونا هرجيسو قصة بقولة هدية شر عرب أو وجهي سويدان دين تا إسلام كايو بيلنا labadaasoo goob laga wada helaana konkursigaasi diineed ee sida gaarka kutub aad iyo aad u muhiima oo wax badan tartay aqoontooda xiliyo colaadaha wani barwaaqadan iyo nimcadan aan isuukin qoofalayn laakiin ilaahay nabadiin siiyay dadkii deegaanka ku walaalahaydeen walaalo nabad ku wada nool noqoteen ilaahay baa aayadka wuxuu ku sheegayaa mar ay col ahaayeen dadkii laga sheekeynayay dabeetana uu ilaahay qalbigooda isoo dabciyay oo ay walaalo nimcada ilaahay ku noqdeen waa ilaahay mahadii nimca waxa nabada naas la looga leh horumarku wuxuu ku jiraa nabada iyo wanaaga iyo cuqdad la'aanta iyo jaarnimo wanaaga waa taa ku gaadheen in la idin soo hirto oo caalamka dal iyo dabadba laydin hadal hayo nabadana xajista cuqdadana iska ilaaliya insha Allah waxaan ku soo dhaweynayaa maamulaha dugsigan boardingka ee Ballimataan Ali Maxamed Askar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفتد شرفت لها إن قصب وقتي هرجيسة إيجا مقرن قيمين يا دنين ينا وبدك هلك وحكم برته يديجانك يا معلمينته waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka oo leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan leeyahay socdaalkiina ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka idinku daro sacyigiina iyo juhdiga aad bixinaysaana ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka abaalmariyo waalidiinta sharafta leh ee soo booqatay ee ka soo qayb gashay xafladan iyagoo oo danaynaya bal ubadkooda ma garanaysaa raalina gelinaya oo ma garanaysaa mahadnaq ka bixinaya dadka ku tabcaya juhdiga ku bixinaya halkan ujeedada kuwa u yimi ee waalidiinta ana iyagana waxaan leeyahay barakallahu fiikum ilaahay subxaanahu wa tacaala idinkana socodkiina ha idinku daro miisaanka xasanaadka ardayda iyaguna ma garanaysaa wax baranaya aan ka rajaynayno in cilmigii lagu shubay iyo ma garanaysaa juhdigii lagu bixiyay midho wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka soo saarana iyagana waxaan leeyahay ilaahay ha noqdo qaar ma garanaysaa guushii laga lahaa gaadha ujeedadii waalidku ka lahaa iyo ujeedadii dadka ku tabcayaa ka lahaana ilaahay mid midhihiisii uu ka soo saaro ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa intaa kadib iskuulkeenna kolley tiro aad iyo aad u yar ayaa lagu bilaabay oo aad iyo aad u yar runtii raggii ma garanaysaa ay bilaabayna dee ay nala fadhiyaan ilaahay khayra ka siiyo waalidiintii ugu horreysay ee ardaydii ugu horreysay loo qorayna ay joogaan sida aan xusuusnahay waxaa lagu furay ardayda deegaanka markii loo yeedhay ee la yidhi halkan tacab baa la gelinayaa goodhan baa laga furayaa run ahaantii 3 arday oo keliya ayaa la keenay sida taariikhdu ma garanaysaa xusan tahay 3daas oo keliya ayaa lagu unkay halkana waxa ka dhisnaa dee ma garanaysaa bas yar oo ka samaysan heeriyo laakiin walillahi alxamdu maanta bilicda ka muuqata iyo guryaha ka dhisan iyo dayrka ku wareegsan iyo dhirta ka beeran ee quruxda badan ee dibadaha laga keenay runtii waynu aragnaa bilicdeeda ardaydana waa arday aad iyo aad u fara badan walillahi alxamdu waa dadaal la geliyey oo aan mar qura laga niyad jabin ayuunbaa halkaa gaadhsiiyey iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu taageeray maadaama aynu garanaysaa u hiilinayno diintii ilaahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee meesha aynu ku baranana yihiin qur'aanka ilaahay iyo axaadiista nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intaa haddii aan ka soo gudbo
waxbarashada runtii ka socota dugsiyada asaasiga ah macnaha waa manhajkii oo dhammaystiran ayaa lagu bartaa dugsiga oo markaasi ka kooban 1 ilaa 7 toddobada galaas imika ay ku jiraan ayaa waxa lagu dhigtaa maadooyinka lagu dhigto iskuulada dhammaantood ee toddobada ah waxa u raaca markaasi 7 kitaab oo kale oo aynu caawa u fadhino ma garanaysaa qalin jabintoodii oo kala duwan marka la isku wada daro dee waa 14 maado ayaa taasi dhigtaa waxa soo raaca quraankii kariimka ahaa waxa weyn halkaasi waa 15 maado ayay dhigtaan ardaydaasi walillahi alhamdu waxaan inoo sheegi doona dee kulli natiijada ka soo baxday imtixaanadii la qaaday gudida u yimi dabagalka ardayda iyo waxbarashadooda ayaa ka dhawaajin doona kulli intaana ilaahay subxaanahu wa tacaala 17 maadaba inay xifdiyaan kana soo baxaan alla waa u fududeeyey subxaanahu wa tacaala markaasi taana haddaan intaa kaga soo baxo ardayda meesha ku jirta imika waxa weeyaan 140 arday oo isugu jira markaasi inamo iyo hablaba ardayda ma garanaysaa inamada ah waxa weeyaan 9 arday habluhuna waxa weeyaan waa 50 140 kaasi ayaa markaasi imika hoygan ku jira ballimataan boodhankana galaasyaduna waxay ka kooban yihiin 1 ilaa 7 kutubtaasna dee waxa weeyaan heer wanaagsan ayay maraysaa dee nimcadaas ayaa meesha ka socota ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka codsanaynaa ama ka baryaynaa in ilaahay inagu sii sugo awoodana uu inoo sii siyaadiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala inagu taageero waxa kaloo jira deegaanku waa deegaan aad iyo aad u ballaadhan run ahaantii markaasi ardaydan imika aanu hayno 140 kan aynu hayno in ka fara badan oo bilaa waxbarasho ah baa jirta imika laakiin ay u suuro geli weyday inay meesha soo galaan waalidiintuna aad iyo aad ayay imika ula jecel yihiin carruurta waalid kasta markaa waxa uu noo yimaadaa isagoo carruuriga qabta laakiintii waxaanu isku daynaa inaanu intan horta aanu hayno ka qabtirno waayo macallimiinta ayaa kooban oo ma garanaysaa ay ka badan yihiin tirada macallimiinta ee meesha joogta iyo tirada ardayda ee meesha joogta ayaa kala badan meeshana waxa weeyaan waa boodhan oo way ka hawl badan tahay meelaha kale way ka hawl badan tahay wada ilmuhu wuu kaa tegayaa laakiin ilmahani annaga wuxuu nala joogaa habeen iyo dharaarba macallinka waxaa laga yaabaa inuu siduu ma garanaysaa ay 5 subaxnimo u tooso ilaa 8 habeennimo uu u shaqeeyo haddana kormeerkii uu saqda dhexe galo kala seexintoodii iyo hawshoodii marka maadaama ay hawshu saa u ballaaran tahay ardayda way ka macallimiinta way ku yar tahay meesha macallimiin in la kordhiyo aad iyo aad baan ugu baahannahay ilaahay baan u ka rajaynaynaa in ma garanaysaa ay kafaalaqaadkoodii aan soo helo cidda kolley u hawlayna way ku hawl jirtaa bushaarooyinna imika waa naloo sheegay in ma garanaysaa durba ay qaar soo kordheen ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay u fududeeyo dadka ku hawlan ma garanaysaa har iyo habeenba u taagan meeshan horumarkeeda iyo ardayda waxbarideeda waxaan leeyahay waalidiinta ka soo qayb gashay mar labaad wafdida sharafta leh ardayda dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu العالمين والصلاة والسلام على الحبيب مصطفى رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهرين وحنو محمد غياه الله سبحانه وتعالى انت خدت وحنو محمد غياه قد شرفت له إنه قصة بقولي مقالة هركيسة سيها يقوه قادان حولها وحبرشو dugsigu siduu u socdo iyo dardargelintooda iyo horumarintooda taasoo ay hadhiya habeen ay waqtigooda iyo juhdigooda geliyaan sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa waalidiinta sharafta leh ee xafladda sida fiican u soo camiray maanta waxaad moodaaba dugsigeenna xafladihii lagu qaban jiray magaalada Hargeysa baan xasuustay marka yani la xidhaayo dugsiyada sana dugsiyada aad iyo aad baan waalidiinta ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay maalin walbana saa inooga geejiya waxaan kaloo mahadnaqayaa ardayda sharafta leh ee soo dadaashay ee 10 bilood aan hawsha soo wada wadnay hariya habeen waxaa ogtiin dugsigeenu waa boarding shaqaduna waa ongoing maalin iyo habeenba way socotaa ardaydaas dadaashay
maantana qaarkood jaaysidaa qaadanayaan dadaalkii ay bixiyeen awgood ayaan u mahadnaqayaa. waxaan leeyahay hawsha halkaas bayn kasii wadaynaa. insha allah waynu isu soo noqon doonaa markaynu fasaxa ka soo baxno idinkoo yani niyadda soo dhistay oo qofku dee markuu in badan waxbarashada soo wado wuxuu u yar baahan yahay wakti yar oo reerihii iyo soo yar marmaro ma garanaysaa. marka labadaa bilood kadib idinkoo meesha xiiseynaya ayaa insha allah isu soo noqon doonaa oo annaguna iyo idinkuna aan dardar cusub hayno halkii baanan ka bilaabi doonaa haddii ilaahay la yidhaa innaga oo higsanayna himiladeennii fogeyd ee aynu lahayn ee aynoo xariiqnayd. intaa kadib kolley hadalka badin maayo, maamulaha dhameeyey ilaahay khayr ha siiye. waxaan jecelahay inaan u sheego ardayda cusuba naloo sheegay ee ka imanaya higlada. kolley dee arday horeba way noo yimaadeen soo maha, dhowr waxaynu odhan jiray higle group soo maha. marka dee arday firfircoon baa inooga timaada oo yani waxbarashada jecel. waxaan xasuustaa nimankii nuugu horreeyay halkay nuugu yimi tobaneyada ahaa ee cumar saabi wuxuu dhigi jiray. yani niman waxaan aad iyo aad waxbarashada u xiiseynayo isku xidhan ayay ahaan runtii. qaarkoodna way sii joogaan waxbarashadii, qaarna meel kale ayay kasii wataan runtii. marka waan soo dhaweynaynaa, waxaan leenahay soo dhawaada, dugsigu waa dugsigiinii waxbarashadana. على نبي الذي سبع ما بعد marka hore ilaahay ayaa mahad leh inuu kulmiyay goobta aadka u quruxda badan ee u barakaysan ee sharcigii ilaahay lagu baranayo iyo culumtii kale maadigaba. waxa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga mudan yahay mahadnaq ballaadhan. waa ogeydeeno dee muddo yar ka hor bay ahayd abaartii adkayd ee ina haysay see u ekayd. yani waxa weeyaan ilaahay baa inaga soo furtay mi iyo magaalaba waa tii dee maaragtay la cabanayay. marka nimcada uu ilaahay inoo shubayna waxay nooga baahantay inuu mahadnaq noqo. ilaahayna wuxuu yidhi lain shakartum laasiidanakum walain shakartum min cadaabi lashadiid. marka xiga waxaan u mahad celinayaa waalidkaa sida fiican u soo ajiibay xafladdan ubadkoodii lagu dardar gelinayo oo runtii mas-uuliintii iga horreeyey ay ka dhawaajiyeen. waayo niyad sami ayay u tahay arday iyo macallinba. markuu macallinkii sannadan ilmihii soo hayay oo uu yidhaahdo waalidkii bal maalintaa igala soo qayb gal waxaan sanadkaa qabanayay siday bal dee u eg yihiin, dee runtii intan in ka badan ayay inaga mudan yihiin macallimiinta ubadka inoo haysaa inaynu haddayna wax kale ku taraynin inaynu bal maalinta yidhaahdaan wafdi baa inoo imanaya ama ardaydii baanu abaalmarin siinaynaa nagala soo qayb gala inaynu aada u dhega nuglaano. runtii waana ilooga baahan yahay, aadna waa u mahadsan tihiin. runtii si fiican baa maanta loo soo ajiibay. waxaa kaloo mahadnaq inaga wada mudan dhammaanteenba wafdiga iyagana hormood u ahaa sheekh khadar aw xirsi askar oo runtii annagu aanu in badan saaxiib ahayn. hargeysa unkumaanaa saaxiibina ilaa qadar baanu isku xidhnay. sheekha khayr laha siiyo muddo 30 sano ku dhow, bise waxaynu odhan doona way waaweyn. ayaanu sheekha isku xidhnayn markaa ilaa yaraantayo ayaanu isku xidhnayn. runtii dee waxa weeyaan wax kale iskuma kaya xidhin. dee reer wagar iyo way ogtihiin oo ma yihi, laakiin waxa weeyaan saaxiibtinimo runtii walaalada iyo kuwaanu maadeerka nahay ka fog ayaa naga dhaxaysa. mar kasta oo hawl qabanayo waxaan doonahaya in dhamari buu yidhahday loweylo maxamedow hawl baynu soo qabanayna ana dee waayo madhada. marka waxa weeyaan runtii aad iyo aad baan ugu farxaa midhaha iyo dadaalka iyo juhdiga uu gelinayo deegaanka. runtii tusaale u ah cid walba daanu nahay deegaanka aanu kasoo joognay gobolka hawd hadday tahay deegaamada kale tusaale u tahay
waxa weeyaan iskuul boodhan oo intaa leeg oo ma garanaysaayay mar walba horumar ku tallaabsanaya oo hadday tahay ma garanaysaayay qaybtaa cusub ee imika soo biirtay hadday tahay qaybtaa caafimaadkee soo biirtay hadday tahay masaajidkii oo imika ma garanaysaayay ardaydii loo soo dhaweeyeyba si dee alla kacabsigooda uu sii bato waxaasoo dhan horta ilaahay baa dee ina siiyey aynu alxamdulilah nahno waxa kaloo mahad mudan dee sheekhaas sababtoo ah sheekh khadar haddaanu u guntanin oo aanu u dhaqdhaqaaqin oo aanu u fikirin oo maxaa garanaysaaye aanu dee habeen iyo maalinba ama carabu carar ama cajamu carar ama reerka dhexdiisa dhexgal aanu odhanin ma iska iman lahayn ma yimaadeen marka waxa weeyaan hortii dee wax kale ma rabe ajri iyo jannuu rabaaye ilaahay waxaan uga baryaynaa ajriga iyo jannadaba inuu isaga iyo innagaba inagu casuumo ina siiyo midhaha iyo juhdigaana uu inoo sii barakeeyo waxa weeyaan runtii annagu halkan waxaan u nimaadnaa inta badan habu socodka iyo qaabkan ay wuxu socdaan inaanu bal qiimayn ku samayno qiimeyntuna waa horumarka keenta markaad isqiimaysaad ogaato halkaad marayso ayaad tidhahdaa ama dubbaad u dhacday horu maaragtay u kac ama maxaan ku dhahay waa dadaalaysa ay sii kordhi marka runtii sidaa uu sheekh shabeelka dhawaajiyey dawro runtii ay iskuullada in yari qabaan ayaa halkan ka maamul ku-xigeen baan iskuulka ahay saaxiibkay askar maamul ku-xigeen buu iskuul kale ka yahay oo albaxrayn la yidhaahdo nankayga cusmaan bin cafaan baa la yidhaha waxa weeyaan ardayda aanu hayno runtii duruus aanay dhigan ayaa halkan sheekhu khayrlaa siiye uu uga suurto geliyey ardayda markaa waxaa ka mid a tawxiidkii waxaa ka mid a culumtii carabigii ee dee diintaba lagu dhiganayey fiqigii iyo sidii cibaadooyinka uga asixayeen baa ka mid a siiradii nebigaa ka mid a intaaba ardaydu runtii si fiican ayay uga jawaabeen waxaa ku tusinaysaa ardayga ugu sarreeya 250 aanu ka doonayno muxuu keenay 249 muxuu dhimay hal buu dhimay ilaahay cilmiga haw siyaadiyo ka ugu hooseeya 8 arday waa 8 arday intaanu ka soo xulnay 24kii wuxuu keenay 224 gudhiisu wuxuu dhimay 23 buundo marka runtii waxa weeyaan waxa ka muuqata ardaydan iyo macallimiintaba dadaal aad u qiimo badan ayaa ka muuqda casharada waxay bixinayaan ma aha xilligii caadiga ahaa waa xilligii ay nasanayeen oo masaajidka ay ku bixinayaan marka hadalka ayaa waxba ku dheeraanina waqtiguna wuu isku rayaaye runtii dhammaan waxaa mahadsan waftiga martida waxaan jeedaa waalidka qaaliga ah ee sida waqtigan kulul ay seexan lahaayeen dee halkan maaragtay nagala soo qayb galay waxaa aad u mahadsan maamulka iyo macallimiinta ardayda aragtay anagu runtii ardayda waxaanu haynaa waa maalintii uun haddaanu macallimiintan xaggan ka niminahay dee maalintii umaanu haynay habeen haddii la dhaha laydinku daro ayaa hayn kara maalintii baanu bisi ka haynay marka habeen iyo maalinba macallimiinta ayaa runtii waxay naga mudan yihiin inaynu u ducayno bal wax kale yaynaan oo inu ixtiraamnana ixtiraam iyo duco ayay naga mudan yihiin kolley hadalkii manaan wada odhan dee maxaan ku idhahdaa wax badanna waxaan filayaa inay harsan yihiin aad baa u mahadsantihiin ilaahayna maaragtay dhammaanteenba waxaynuu soconahayna gaarsiiyo bilahi tawfiiq wasalaamu calaykum mar walba meel walba hormood aan uga dhigi lahaa runtii shaksiyad ayuu yahay waayo qofka waxtarka leh ayaa ugu qiimo badan ummaddan waana shaksi waxtara horumarka jecel insha allah waan soo gaagaabin doonaa waxaan u yeedhayaa good ismaaciil oo gabay noo tirin doona islaamka aan kaga salaamayaa dhammaan waftida ballaadhan ee halkaa nooga soo haajirtay ee u timi ubadkayaga wiil iyo gabadh baa anagu aan dhalay halkaa waagii barya baa hadanahooda dhulka u dhiga kuwa iyagana soo horbariya halkaa usoo mara ilaahay waxaan uga ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahadle ilaahay baan mahadno ilaaha raxmadda iyo barwaaqada ila siiyey aynu isugu nimid abaartii iyo dhibaatadii iyo culayskiina inaga dulqaaday ayaan mahaddaa iska leh oon mahad celinaynaa waxa kale oon mahad weyn u naqaynaa culimada halkaa waagi baryaba noo soo marta ee ubadkeeda nagala qayb qaadata ee hawsha ubadkayaga leef dhib iyo
maanta waxbarasho iyo saaka dhamaystiran tahay waxbarashadoodii iyo noloshoodii iyo hurdadoodii iyo saaka dayactirkoodii waagii baryaba iyagoo ilmo ugu jirin oon ubadkoodii iyaga meel gaara ay hawshoodii ku wataan kuwa iyagana halkaa nagala wada ee halkaa howlaha iyaga waag baryaba u imanaya ayaa ilaahay waxaan uga baryaynaa mahad weyn ilaahay inuu subxaanahu wa tacaala ubadkooda iyo ooryahooda iyo kii aan markaa ubadiyo oorihayna ilaahay meel khayr qabta uu subxaanahu wa tacaala ilaahay uu halkaa isaguna ku abaalmariyo ayaan ilaahay uga baryaynaa abaalmar wanaagsan baa ilaahay uga baryaynaa ilaahay kuwa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ilaahay isaga ku abaalmariyo miisaanka xasanaadkana ugu daro ayaan ilaahay ugu mahadnaqayaa oon ilaahay u baryayaa waxa kale oo halkaan ka salaamayaa waalidiinta rag iyo dumarba leh ee halkaa maanta fadhida ee ubadkoodii iyaguna dhagaysanaya darajaanu gaadhnoo daayin mahadi weeye kaalay daawo beeshii kayntii dugaag iyo dacwadu ku noolayd kayntii dugaag iyo dacwadu ku noolayd waa dahab nasiibkee weli daahir oo kacay weligaasna waa qadar iyo culamadii kale kayntii dugaag iyo dacwadu ku noolayd weli daahir oo kacay waa dahab nasiibkuye kayntii dugaag iyo dacwadu ku noolayd weli daahir oo kacay darajaanu gaadhnoo dariiqaad maraysaba nimcaa lagu duuduurto diintiiba ayaa maanta soo buuxiyey goobta iyadoo sanad dugsiyeedkii uu dhammaanayo waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala xasanaadka ugu daro waxa kaloo aan runtii aan u leeyahay waxaa laga yaabaa inta ay joogaan ubadkaasi guryaha ay joogaan waynu dareensannahay oo dee waxa weeyaan ubadka yahay labada ayaamood ee annagu aan khaataan ka taagannahay bal ka warran 10 bilood maxay ku qaataan laakiin waxay ka doorbideen in tolkooda askar iyo cameramanka ama inanka kamarada naga qaadaya iyo inanka gaadhiga noo wada dhammaantoodba aad iyo aad bay u mahadsan yihiin hawshaasi joogay kule ardayda marka xilligan ardayda higlada maxaa tiraahday soo dhaweynaysa soo ma صح قال قيميسه ما يكلا داعي ود يابسه علي عمر حسين بارك الله قال انت صدحت ابراهيم ما شاء الله لا كالم والله صبرتك ورد كالم تكبر يا قريبا نقوله انت وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلنتونا سر هيجلو أرضيدا والدك ويلاليه قبلبا يو مدرياليه مروين با والدكم هذا قناصة قيمها بدن أو قصة قيب قشين مناسبات دن قيمها بدن يدونا يعني كتر تقيل إنه وحبرشة ده دوك سجن هيجلده أي سقوط شرته